hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay baaq u dirtay Somaliland iyo Puntland dagaalka labada dhinac ay isaga soo horjeedaan ee maalmahan soo noqnoqonaya ee ka dhacay deegaanka Tukaraq. warbixintan waxa inoo haya Axmed Cabdi Cali oo ka qayb galay shirka jaraa'id ee culimada Soomaaliyeed ku qabteen magaalada Muqdisho. shirkan jaraa'id oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen xubnaha hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxay kaga hadleen dagaalka ka soconaya deegaanka Tukaraq ee u dhaxeeya maamulada Puntland iyo Somaliland. hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxay soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayaan dagaalkaasi, waxa ayna ugu baaqeen ciidamada halkaasi ku dagaalamaya ee ka kala socda Puntland iyo Somaliland inay si degdeg ah dagaalkaasi u joojiyaan oo ay ka shaqeeyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed. sidoo kale bayaanka ka soo baxay hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku saabsanaa sida dawladda federaalka ee Soomaaliya looga baahan yahay inay u wajahdo dagaalkaasi ka soconaya deegaanka Tukaraq ee u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland. gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyeedka ka soo baxay hay-adda culimada Soomaaliyeed ee looga hadlaya dagaalkaasi. hay-adda culimada Soomaaliyeed ayadoo gudanaysa waajibka ka saaran ilaalinta danaha ummadda Soomaaliyeed kana duulaysa ahkaamta iyo ujeedooyinka shariicada islaamka kana walwalsan colaadda ka aloosan deegaanka Tukaraq una naseexaynaysa walaalaheeda Soomaaliyeed waxay soo saaraysaa baaqa soo socda. culimadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Somaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xalliyaan si nabad ah, ilaahayna subxaanahu wa tacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaadu ragaadisay, una dhaganuglaadaan baaqyada nabadeed. qaala tacaala fattaquu llaha wa aslixuu daata baynakum. culummadu waxay ka digayaan cawaaqib xumada burburka iyo barakaca ka dhalanaya colaadaas, iyadoo ay ka jiraan deegaanada duruufo adag, loona baahan yahay in xoogga la saaro nabadeynta iyo horumarinta deegaankaas. sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay Sheekh Nuur Baaruud Gurxan iyo sidoo kale Sheekh Soomow oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed, waxayna ugu baaqeen maamulada Puntland iyo Somaliland inay jid degdeg ah u joojiyaan dagaalkaasi oo ay ka shaqeeyaan midnimada iyo horumarinta dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool. qofka mu'minka ilaahay agtiisa xurmo weyn buu ku leeyahay. waa qof adoon ilaahay, waa qof ilaahay u tukaday, shanta waqti u tukada, ilaahay magantiisa ku jira iyo badbaadintiisa. ilaahay oo xeradiisa loo dhacay weeye marka qof muslina la dilayo. marka waa arrin runtii aad u fool xun. nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam khudbooyinkiisa u dambeeyey ee dardaaranka ahaa xajkii u dambeeyey markuu joogay khudbadiisii yowma carafa waxaa ka mid ahaa ina dimaa'akum wa acraadakum wa amwaalakum xaraamun ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada. xadiidkaas waxaa ku jirtay alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd. dhiiggiinna waa idinka xaaraam inaad dhiig iska daadisaan, sharaftiinna ood wax ka sheegtaan, xoolihiinna ood dhacdaan, yuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. khudbad dardaaran ay ahayd. qofkii kan la dila iyo kan wax dilaba alqaatilu walmaqtuul huma fi naari, sida nabigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam. sidaa daraaddeeda ayaan haddaan nahay dhammaan culimada Soomaaliyeed nooc kastoo nahay waxaan ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogto inay ka fogaadaan colaadaha iyo dagaalada, gaar ahaan dagaalka hadda soo la sheegaayo in maamullo ay iskugu birtumanayaan oo ka weynkii xataa qabiilka caadiga ahaa. waxaan leenahay hala joojiyo. muddooyinkii dambe ayaa waxaa jiray dagaal u dhaxeeya maamulada Puntland iyo Somaliland, waxaana shalay oo ugu dambeysay dagaal ka dhacay deegaanka Tukaraq uu sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Axmed Cabdi Cali, Somali Cable TV, magaalada Muqdisho.